aydaas waxay horta ay waasada leedin sheegay idinku ka warqabtaan anagu maana ogaan horta runtii waxayna ahayd inaan ka warqabno anagu lana soo ogeysiyo xogan ka helno kadibna aan talaabo ka qaadno marka aydu sidaad ogtiin badi waa sanadkiiba hal mar baa la sameeyaa dad dhibsaday ama ay dhibaatooyin u geysteen baa sameeyay iyagoo aan marka ka fiirsan shuruucdii iyo nidaamkii u degsanaa taasina marka waxay keentay ayadii inay suntii cunaan kadibna ay kala yaacaan laakiin imika waan soo ururnay shaqaale dawladda oo soo dhamaan dareernay gawaadhidii oo dhan way daba socdaan marka meel kastoo lagu gaadho waa la soo qabanaya waana la ururinayaa inankii ganacsadii hawsha ku dhaqaaqeen waanu yeedhnay waana ka wada hadalnay waana laga wada howlgalay haddii dadku gudoomiye marar badan dawladda hoose iska dhagatirto fariimaha ay soo gudbinayaan ay leeyihiin waxaa naga qabta markii ay iska sameeyaan ayadiina aad xidhxidhaan sida arrinta markaa la isugu keenayaa qorshahan horta shaqada waa shaqadii dawladda hoose cid iska dhagatirtayna ma jirto cid u keentayna ma jirta laakiin uun waa kolley waa tallaabo aw qof dee shaksi qaaday mana filan runtii cid loo yimi oo diidayna ma jirto waayahay wax tira kooba ma laga hayaa ilaa iyo meelaha goobaha lagu iibiyo guud ahaan intay leegyihiin sunta noocaas oo kale hadda waxaa lanoo sheegay oon mar hore lanoo sheegay un dignin oo qornay dukaamo farmasiya ayaa iibiya dawada nooca waxaa la yidhahdaa magac bay u sheegayeen in la iibiyana maaha waa mamnuuc waxaana wasaaradda caafimaadka iyo dawladdu ayna ka wada soconin waxaasi in la iibiyo maaha waana qorshaheegana ku jirnaa waana soo ururnay campaign oo ku qaadayna haddii la markay duunada baxo waqtiga maxaa lagu diidayaa in la sameeyo waqti waxa lagu diidayaa waa waqti roobaad biyihii baa dhulka jooga ayuu markuu biyaha cabo wuxuu tagayaa dooxa iyo dhulka ay biyuhu istaageen marka kula habaan sunta ka baaba'aysaa isla biyihii balliga ku jiray dee waxaa imanaya markaa inay xoolaha laftigooda ay ka cabaan marka maadaama ay ka tahay waqti in waqti roobaad ahayn biyuhuna ayna ceerish ku jirin waqtigaas dhibaatada dhacday waxa weeye dadkiina waxyaabaha yacan dhibaatooyinka ay keenayaan ayaa hadhow ka cawdaan dad baa xanuunsaday koranayaan waa dhibaato iyagu gacantooda ku samaysteen marka waxyaabaha noocaas waxaan leenahay waa laamaha dawliga iyo khusuusiyaha loola tago wasaaradda caafimaad baa jirta dawladda hoose jirta waxyaabaha laga wada hadlo laakiin maaha dawladda in la iska iibsado oo waxa la wixii la doono lagu falo taasina waa dhibaato keenaysaa ilaa waxa ka baryaynaa waa bariye ciideeda inaan wax dhibaato noo keenin laakiin waxa dambuuna laga taxdiraan leeyahay hadda bulshada hadda wax qabanayso war wax qabad ugu badan yihiin guryaha hortiina laamiyada saddex mitir ka horeeya la soo dhiso intaas oo dhabaaydu ku baryaynaa marka waxaan leenahay haddii la yiraahdo arrimahaas wixii dariiqa saxda ah waafaqsan hal la raaco waxyaabaha kalena inaga ilaaliya arrintaas oo yar foolxunta saakan iska gurnaa mina subaxii baan iska gurnaa noo saaka halkii salaadka laga soo baxay ee la olxaynaya laga soo yaa maxaa la sameeyay shalay tole halka noogu dhintay kabacdi saakan iska gurnaa wax laga guraa kolkaan weynaan saaka iska gurnaa oo lacag iska bixin ayda waxa sameeyay ayaa la leeyahay dadka shacabka ah shaqadaasna waxa ahayd tii dawladda hoose ay ahayd dawladda hoose ma qabsay maxaa u aragtaa marka dawladda hoose maxaa leeyahay kolkay nagu bateen maxaan ku dhahnaa waxaan u cirsaday xitaa caruurtii maxaan ku dhahday hay naga cuni gaareen baan maxaan ku dhahday iska sumaynay ay dawladdiina noo soo dhaqaaqi weyday xalleedin inta dawladda hoose ya dawladda hoose maxaa leeyahay waxaan leenahay naga sumeeyo maxaan ku dhahnaa nadaafada hala waxeeyo halkaas oo imiga caruurtu noogu sumeeyeen halkaas aan iska gurnay annagu mashaqo ka dhacday halkeenii shaqaale jawhar oo wax taransada islaayeen laakiin waxyeelo runtii deenayno keentaanu ka baqayno halkan imiga aynu dul taaganahay waad aragtaan aynu dul taaganahay meedkiisii urtiisii wata aynu wada haysaynu xamili laanahay aynu qaadan kari laanahay runtii waa fal xun oo waxashnimaha waxaan leeyahay falkaas oo kale shacbiga ka digtoonaadaan qof shacbiyana maba haba sun inay gacantiisa soo gasho waa wax aan loo dul qaadan karin waa waxaan la aqbali karin hay'adaha jira nidaam dawliyeenu leenahay ma nihin waddan fawda waddan nidaam iyo kala dambayn iyo dawladnimo labaynu nahay ma nihin inaynu qof labantu iska socdo wuxuu doono intuu soo qaato wuxuu doono sameeyo ma nihin taana waxaan leeyahay ciddii ku kacday waa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado aan loona dul qaadanin shacbiga xaafadda ee shaqaalena waxaan leeyahay runtii waan idiga raali gelinaynaa falkaa dhacay hadda waxaan dalbay iskarogadii oo maayirkii baan la hadlay xogeeyena waan la hadlay dhaqsaa u soo gaadha baan ku yidhi hana la guraan idhi meydka ciida 2 midh saaka waxaa laga qaaday halkanaa laga qaaday waa waxa maxay ahayday runtii midna waa halka imiga yaaleen soo marnay midna waa falkaasi waa fal magaalada dhan imiga wax layna leeyahay xaafadaha way ku daadsan yihiin
waynu haddii ilaahay dhaada guranaa waynanu ka hawlgalaynaa shacbigana waxaan leenahay bal ka digtoonaada inta ay meelaha yaalaan carruurtana laga xereeyo hana la iska ilaaliyana marka waxaasoo kale dhacaana waa in degdeg cidda ay qusaysay loo soo gaadhsiiyo aad iyo aadna wada mahadsantihiin qoladiina saxaafadda waxaan ka hadlayaa maanta oo munaasabadan aan uga faa'iidaysanayaa bulshada maanta oo iyagu ku tallaabsatay waxqabad muuqda oo ay ka mid yihiin in ay samaysato xaafadda Shacali Jawhar wadooyinka ay dayactirtaan oo ay gacantooda ku samaystaan taas oo ay haddana maanta ay ku dareen waxqabad kala muuqda oo in aydii maanta xaafaddu ay iska sumeeyeen xaafadda Shacali Jawhar maanta si ballaaran oo lala ballaaran bay qaadeen aydiina way macnaa waa ay sumeeyeen ayda ay sumeeyeenna macnaa iyaga ayaa is ixtiraamay iyaga ayaana macnaa hawsha fuliyay taas oo ah waxqabad la'aan anagu aan ka gaabinay dhinaca iyagu dawladhaas ahaan iyo maamul ahaan bayna anagu ayda aan wax ka qabanno aydan dhibaato badan bay xaafadda ku hayeen cabasho badan baa nooga timiday goladeegaan ahaan iyo maamul ahaanba aydan waxay cunayeen dadweynihii bay cunayaan oo dad waayeelay cuneen carruur ayay cuneen adhiga ayay xaafadaha ka cuneen xaafadii baa laga geli kari waayey dhibaato badan bay xaafadaha ku hayeen bulshadaasoo maanta is ixtiraamtay aad baan u taageersanahay aad baan anagu ahaan u taageersanahay aydaasoo maanta ay laayeen oo ay laynta ay laayeen ay ku dareen daryeel iyo olole ay ku qaadeen bulshadu waxay maanta qabatay degmadeenu waxay ka ballaaran tahay oo ka fiican tahay wixii dawladdu qabatay xaqiiqatan dawladda hoose waxay qabatay waxa ku marxaatiya wadooyinka ku marxaatiya wadooyinka aad arkayso maanta tii ay dawladda hoose samaysay iyo tii ay bulshadu samaysatay way kala qurux badan yihiin way kala tayo fiican yihiin waad arkaysaa markaad maanta aragtay jaamacadda Camuud baxda laamida ka soo bilaabantay qaabka ay u taalo iyo quruxda ay leedahay waxaad arkaysaa markaad aragtay laamida magaalada marka laga baxaayo ee asarda samaysay quruxda ay leedahay iyaduna iyo macnaan daamirka ka muuqdo waad muuqataa tii suuqa bartikeegina dhaska iyo boorka ka kacaya maanta iyadana waad aragtaa marka waxa leeyahay bulshadu waxay qabato annagu waan ku taageersanahay waxqabadka iyaga ayaa yaraaday annaga ayaa ka gaabinay bulshaduna iyo saadooshiyada nadaafadda iyaga iska hagaajiya xashiishka iyaga ayaa iska hagaajiya wadooyinka iyaga ayaa waxqabad muujiya bulshadana markaa in annagu ka dhex baxna maaha bulshadiina soo dooratay weeyaan iyagaana taageersanahay waxqabadkoogana waxaan annagu aad iyo aad maanta halkan uga hadlayaan u taageersanahay hawsha ay qabteen hadday tahay waddo ay sameeyeen oo ay ka mid tahay waddada Sheekh Cismaan iyagu ay gacantooda ku sameeyeen ay is abaabuleen haddii ay tahay ayda ay sameeyeen haddii ay tahay waddada Shacali Jawhar hadday ictireenba intaba aad baan ugu taageersanahay anu xildhibaan ahaan anoo ka soo jeeda golaha deegaanka degmada Boorama aad baan ugu taageersanahay waa inay ku mahadsan yihiin bulshada ay is ixtiraamto